meesha annaga amaanta ka dhisayna guryahan ku yaala waa 10 biyano iyo 6 biyano iyo 9 biyano iyo 12 biyano waa ku qaban kartaan kaamirada iyo kuwa soo socda wariyaashu waa ku qaban karaan waa inaad duubtaan guryahan intay leeg yihiin hortooda inay sidaas noqoto waxa keenay wadadan oo laga wada tashanayay kabaha inaan la casaysana la rabaa degmada hodan kabaha laga casaystaa laga rabaa way jiraan dad si qaldan u fakaraay dad oo waxyaalo qalad ah sheegay degmada hodan garsoorna ma booliisna ma waa maamulkuna wuxuu awoodaa jira anaga dhul ma maamulno sidanada wax dhul ma maamulno shaqo ku waliin wasaaradda iska maanta mobilkaaga inta saaran dhalada Soomaa qof ma ka cabsanay wiilashaas amniga ka shaqeeya loo mahad celiyana loo duceeyay ayaa sababa dadka qaar inay ku fakarayaan wadooyinka meelay ka dhisayaan meesha annaga amaanta ka dhisayna guryahan ku yaala waa 10 biyano iyo 6 biyano iyo 9 biyano iyo 12 biyano waa ku qaban kartaan kaamirada iyo kuwa soo socda wariyaashu waa ku qaban karaan waa inaad duubtaan guryahan intay leeg yihiin hortooda inay sidaas noqoto waxa keenay wadadan oo laga wada tashanayay oo injineerkan garabkayga joogay injineer kale iyo shirkadda dhisaysa Abahaas ay ka hawada hadleen wadadan waa biyo mareen hadii dadka lacag laga qaadana anaga jeebka dadka aan turayna 5 shirkadooda u tartantay maamulka degmada hodan lacag ma qabto shacabka iyo shirkadda iyo anaga saddexdanada waa fadhiisanay anaga kama shaqeeyna inaan lacag aruurino iyo waxa dadkan ayaga qanacsan ayaga shirkadaha tartamay shirkadana ka soo dhex baxday oo wax badan ka qabatay degmada hodan runtii mudanna in ayada taarga gooniye iyo maamuus gooniye looga dhiso sababta qofku markuu wax qabto markuu dadaalo Abahaas runtii waxay meeshan ka qabatay wax la soo koobi karmaa Abahaas waxaan ka rabnaa maantay wadadan aan joogno oo warta si yaala ku dhacda ilaa KBB qofkii yaqaana ilaa kaas balbalaare waxaan ka rabnaa interlog inay noqoto Abahaas waxa laga rabaa wadada maanta aan joogno anaga shacabkana waa kula xisaabtooyna inta waxaan rabnaa inaan midaan ku xirto halkaan aada oo xaaji baasta aada ilaa inta ka bilow ilaa KBB oo wadnaha ku xiran waxa laga rabaa ama waaxyaha kala duwan 3 waaxood waaye waa 4 waaxood ma waa 3 waaxood waa waaxdan iyo Axmed Gurey iyo Kacaan waxa laga rabaa inaan isku xirto inay noqoto meel aan qofka halkaan ka baxaaho oo san dareemin boor kabaha inaan la casaysana la rabaa degmada hodan kabaha laga casaystaa laga rabaa anaga waxaan uga duwanahay inaan wax samayno meeshii maanta aan dhisnaa waxay noqotaa albaab iyo ganacsi iyo business dawladda canshuura ka soo gasha gobolka Banaadirna canshuura ka soo gasha degmada hodanna bilica ka soo gasha waxa aan dhisaynaa ducada bulshada ayaan ka helaynaa way jiraan dad si qaldan u fakaraay dad oo waxyaalo qalad ah sheegay degmada hodan garsoorna ma booliisna ma waa maamulkuna wuxuu awoodaa jira anaga dhul ma maamulno sidanada wax dhul ma maamulno shaqo ku waliin wasaaradda iska hay'adaha iska waxa maamulnaa waa ummadaas degan iyo dukumiinti qofka dhul haysta ayaan kala shaqeynaa intaas ayaan ka shaqeynaa horumarka bulshada ka shaqeynaa waxaan dhisanay MCH waxaan dhisanay goobo waxbarasho oo iskuulo waxaan dhisanay maxay ahayto amni stationkii maamulka degmada wax dhan ayaan dhisanay waxaan dhisanaynaa anaga waxba baan dhisaynaa waxna waa maamulnaa wixii nolol dhiibaan maamulnaa anaga intaasaan ognahay laakiin qofkii dacwo qaba garsoorka waa life oo ogyahay Soomaaliya garsoorkeedu waa life dacwadu qabo keeli kara qofkii wax ka haysta halkaas ku dacwo kara waxa la rabaa moogtaa jiingadaas meesha ku dhagan haddii soo wada ahayn anaga ma fuji karno sharciga uma liinba inaan fujino marka waxa la rabaa dadka naga wanaagsan oo qalbiga wanaagsan oo nala shaqeeya oo horumarka ka shaqeeya waxaan rabnaa inaan horumarkaas wadno maxay ahayto dib u dhiskaas inaan wadno maxay ahayto dadka naga inay noqdaan ammaanka meeshan ka keenna waad ogtiin meesha Sheekh Maxamed maalinka uu yimid wuxuu yiri taleex qof kamida mobile ma qaadi karo maanta mobilkaaga inta saaran dhalada Soomaa qof ma ka cabsanay wiilashaas amniga ka shaqeeya loo mahad celiyana loo duceeyay ayaa sababa iyo shacabkooda iskaashada hal tuug ma soo gali karo burcad iyo tuugo iyo baaqi leeyahay maxay ahayto dadan kala duwan